deeq raashin oo ka timid hay'adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa loo qaybiyey in ka badan 600 oo qoys oo ku nool tuulada Ceel Xarar oo hoos timaada degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe kan degmada Cadalle iyo xildhibaan Geedi Oomane oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa si siman ugu qaybiyey bulshada tuulada oo saameyn weyn ku yeelatay abaarta ka jirta guud ahaan dalka iyo colaadda. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdaani raashin ayaa u mahadceliyey mas'uuliyiinta iyagoona sidoo kale codsaday dadka dhibaataysan in loo fidiyo gargaar bini'aadanimo. Waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed kala qaade gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmada Shabeellada Dhexe. Intaas baan u mahadcelinaynaa. waxaan u mahadcelinaynaa anagoo intaa sano abaarana hayeen oo colna hayay ayay inoo soo gurmadeen gargaar bay inoo keeneen gargaarka ay inoo keeneen waa ugu mahadcelinaynaa. dowladda Hirshabelle waa mahadsan tahay abaara iyo baraka iyo wax walba degmada Cadalle aan ka xisaaban tuulo la yiraahdo Ceel Xarar aan joognaa beriga hadalaha ka yimaadaan ku qaybsayo hayna waa mahadsan tahay. wixii ayna soo gaarsiiyeen anakoo ah barakaca deegaanka Ceel Xarar oo abaaro iyo colaad ay maaragtay barakac nagu sameeyeen wixii maamul goboleedka Hirshabelle iyo maamul degmada Cadalle naga soo gaaray waa haysanaa. waxaan joognaa degmada Cadalle tuulada Ceel Xarar ayaan joognaa gacan saar dhilla ayaana soo gaaray beriga waana qaybsanay nabadgelyo si xamaasad leh ayaa degmadu noogu qaybisay waana ku mahadsan tahay. gobolka Shabeellada Dhexe madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka waa u mahadceleynaa. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Cadalle Cali Cabdulle Cadow iyo Axmed Maxamed Mahad Alle oo ka socday hay'adda maareynta iyo musiibooyinka ayaa dhankooda ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada iyo dhibaatooyinka haysta bulshada. anigoo wakiil ka ah degmada Cadalle waxaan la wareegay raashinkii kasta yareedo raashinka ahayd eena lagu soo dhiibay annaguna waa ka aqbalnay waana ka gudoonnay annaguna waxaan gaarsiinay meeshii loogu talagalay iyo dadkii loogu talagalay. degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe maamulka Hirshabelle waxaan xaqiijinaa in aan soo gaarsiiyay deeqdii ayada ahaydoo la ii soo dhiibay. gaar ahaan waxaa ii soo dhiibay agaasimaha guud ee waaxda gargaarka Cabdirashiid Maxamuud Ismaan Maxamuud Xasan iyo gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle. waxaan halkan ka cadaynayaa maamulka gobolka kan degmada dhammaan ururada bulshada oo diyaar ah inaan ku wareejiyay dadkii loogu talagalana la gaarsiiyay. gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Muuse Shitaabe ayaa ka mahadceliyey deeqda la soo gaarsiiyey isagoona codsaday in la ballaariyo gurmadka. waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adda musiibooyinka maareynta qaranka oo nagu wareejiyey raashin. runtii aad ugu mahadcelinaynaa maadaama hadda raashinkaas uu soo gaaray waxaan u qaybinay degmada Cadalle gaar ahaan tuulada Ceel Xarar oo beriyahan ay ku soo noqdeen dagaal sokeeye iyo abaaro. intaan waxa aad u yar kullee waxaan rajaynaynaa in raashin intaan ka badan la keeno dadka aad u dhibaataysan yihiin abaar colaad shabaab cadow wax badan isugu darmay marka waxaan aad kaga rajaynayaa in raashinka intaan ka soo badi doontiin iyo deeqaha loogu talagalay dhammaan aad iyo aad xildhibaan Geedi Oomane oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle ayaa sheegay in abaar baaxad weyn ka jirta degmada Cadalle iyo deegaanada hoos yimaada loona baahan yahay in laga qayb qaato gurmadka abaaraha isagoon ugu dambeyn u mahadceliyey hay'adda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka oo deeqdaani soo gaarsiisay dadka dhibaataysan. Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe maamulka Hirshabelle waxaan u joognaa qaybinta gargaar ka yimid hay'adda gurmadka iyo maareynta musiibooyinka qaranka oo uu na soo gaarsiiyay wakiil ka socda. maanta waxaan u mahadcelinaynaa xaqiiqatan guddiga gurmadka qaranka ama hay'adda maareynta musiibooyinka ee heer federaal oo maanta na soo gaarsiisay gurmad
ay u baahnaayeen dadka ku nool degmada Cadale gaar ahaan tuulada Ceel Xarar raashinka maanta nala soo gaarsiiyay wuxuu ka kooban yahay 668 qoys waa raashin ka yimiday dawladda Imaaraadka xaqiiqatan dadku way u baahnaayeen degmada Cadale maanta raashinka la soo gaarsiiyay ama gurmadka la soo gaarsiiyay xaqiiqatan kuma filna hal tuulo kamid ah ayaan ka siinay raashinkan waxaan ka codsanaynaa in la soo daba dhigo raashinka la soo gaarsiiyay dadka ma wada gaarin hal tuulo soo gaaray waxaan ka codsanaynaa in raashinka la soo gaarsiiyo dadka u baahan degmada Cadale sida gudoomiyuhu oo uu sheegay gudoomiye ku-xigeenku waxaa ka jira abaaro waxaa ka jira colaado waxaa kaabiga ku haya oo mar kastaba ka shaqeynaya inuu qalqal geliyo al-shabaab